faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar toos ah oo ay saakay xoogag ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya kaasi oo ku yaalay deegaanka Masagawaay ee gobolka Galgaduud. Wararka ayaa sheegaya in weerarkan uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyay ciidamadii ku sugnaa xerada la weeraray iyo xoogagii soo weeraray Al-Shabaab. Ilo dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in dagaal culus uu ka dhacay halkaasi iyada oo dhawaqa rasaasta laga maqlayay meelo ka baxsan deegaanka Masagawaay ee la weeraray ee gobolka Galgaduud. Macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan iyo dagaalka xigay waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan. Dhinaca kale war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadoodu ay cagta mariyeen xerada ay weerareen isla markaasina ay khasaare culus gaarsiiyeen ciidamadii deegaanka iyo kuwii dowladda ee xeradaasi ku sugnaa. Dhankooda saraakiil u hadlay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay iska difaaceen weerarka uga yimid Al-Shabaab isla markaasina ay fashiliyeen dagaalka ay soo qaadeen Al-Shabaab kaasi oo qaraxyo culus ku bilowday. Weerarkan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmihii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Al-Shabaab ay ka socdeen gobolka Galgaduud kaasi oo deegaano hor leh ay dowladdu kala wareegtay Al-Shabaab.